intaa markaa taan ka gudbo waqtigan xirada kitaabada akhristaay waxay u badan yihiin iskoolay rag iskoolab wax ka barta aqoonta maadigu diintu ma diidinin ma aanay mamnuucin imaam Ghazali ilaahay u naxariistay culumtaas kitaabo badan oo uu ka qoray baa jira naftirkeeda waa culumta hadda sayniska loo yaqaano juqraafiga xisaabta cilmi falaga waxaas dhan uu yaqaanay waxaas oo dhan waa uu yaqaanay kutubtiisa way ka buuxdaa xataa kutubtiisa fiqiga ay waaweyn marka uu sharaxay qaybo kamid ah tusaalayaasha uu soo qaadanayo xisaab baa ku jirta cilmi falag baa ku jira wax badan baa ku jira taas waxa ku tusinaysaa ilaa waayo hore kaligiisna ma ahayn culimada intooda badan saas la aha imaam Ghazali Fakhruddin Razi wax weeye Shahrastani ragaas oo dhan waxay ahaayeen rag noocaas zaman waliba maanta waxa lagu jiraa ninka Ilaahay umri siiyo de si noolaada Soomaalida waxa ku socota dad badan oo ama gaala dabada ka wado ama iyagu iskood ha u qaataane qaar doonayay diinta Ilaahay iyo nidaamka bulshada iyo dawladda iyo waxa in la kala saaro oo diinta lagu soo ururiyo masaajidka inay iyo qaar doonaya dadkaba in diinta laga saaro Ilaahay ma jiro meelaha la taagan tabayshaas dad badan bay salfatay dad badan oo kalena way salfan doontaa dadka ugu sahlan ay ku soo degay ay ku soo hormarayso ay ku soo horeynayso oo halista ay ku hayso waa dadka iskuulada dhigta jaamacadaha dhigta taa macnaheedu ma ahan iskuulkii ka carar jaamacadii ka carar waa culum loo baahan yahay bulshadu u baahan tahay waxtar leh laakiin qofku isku wadi karaa labada wuxuu ku noqon karaa heer sare uu ka gaari karaa hal raa marka raggu markay foonfoorada gaaraan qaar horta iskooleyda markay ka baxaan oo secondary noqdaan kitaabaha meel ba iska dhigaan qaarkood qaarna markay foonfoorka ka baxaan oo ay jaamacada aadaan bay meel iska dhigaan waxa laga yaabaa tuulooyin magaalooyin dif yani diin sidaan ayaa suuqa iska galaan laakiin adduunka waa sakhire casharada hadda masaajidka kaga taxnay iyo culimadii oo dhan waxay ku wada jiraan internet qof aan telefoon haysanina maanta waa dhif iyo naadi waxaan isu dardaarmaynaa in sida iskuulka loogu mintidayo si ka badan in adoo la rabo culumtan kulli waa ka wada keenaysa waa kulli ilaahay awood uu ku siiyay subhanahu wa ta'ala yani bani aadanka asaga awoodiisa isku yareynaya ma ahay ilaahay awood waa uu ku siiyay awoodda marka inta isku yareyn lahayd oo ama diinkaagii aad ka carari lahayd maanta waliba diintu kama maaranto diintu weerar badan baa lagu hayaa tafsiir khaldan hatta dad waxa jira ayagu isla diinta ilaahay u gargaara laakiin quraanka ilaahay iyo sayniska raba inay isu luqun jibaaraan oo quraanka ilaahay aad moodaysiin inta saa luqunta ugu soo dhagaan inay rabaan inay ku camcamiyaan meel uusan gali karin waxa soo dhan oo ilaahay diinkiisa dadka ugu yeera maadina fahamsan علومته واجي هرد علقي علماء الإسلام دين يمادي ما يسكر الله مساجد الوجود برنجري وحولا عافماتك والوجود جنجري حسابته جغرافيا كل الوجود جنجري واحد إنه كان يرهق بيتك يا كنيسته أنت عذابين ودبين وشريكين بيوحي كلا سارين دينتي يو وحي علومتي مادي قاعد بكلا سارين إنك سيد كتمت أيضا لك تنوع مادي تنوع دين والله سكوضة برنكرة marka waxaan isu dardaarmaynaa oo aad idin kula dardaarmaya ragga waliba soo kacaya loodka soo kacaya diintan ilaahay subhanahu wa ta'ala horta cidna ayadu marti uma ah ilaahay asaga ballan qaaday nabiga kaleey salaatu wasalaam iyo saxaabadiisii oo nool oo aan diintii ka tanaasulin oo nafta u huraya ayaa ilaahay wuxuu ku lahaa waxa weeye in yasha yudhibkum wa ya'ti bi aakharin wama dhalika 'ala allahi bi'aziz hadduu ilaahay u doono intii inaan idin tagsiyo oo idin baabi'iyo ayuu kuwa kale keenaya diinkiisa u shaqeeya dhib kuma ay hayso haddaad jeesataan hata waalidii ka jeesanaya
إلهي دين كيس سبحانه وتعالى عز عدنا وما يبان لكن عد الرويني عز كيالة أيضا ودينك إلهي أي شرف كيالة ودينك إلهي أي معنى كيالة ودينك إلهي وكم موضوع وضدك مركي نحمر ريان النبي عليه الصلاة والسلام حي خير الناس أنفعهم للناس ضدك إلهي وحا ugu khayr badan kan dadka ugu waxtarka badan qofka dadka jahliga ka saara cid ka waxtar badan miya garanaysa waa may jahli wax ka xun oo bani aadanka uga xun ma uu jiro waay ilaahi subhanahu wa ta'ala wixii koowaad ee nabiyullaahi aadam markii la abuuray la baray ama la siiyay bade aqdiyadii ugu horeysay siismadii ugu horeysay nabi aadam la siiyay maxay ahayd وعلم آدم الأسماء كلها إلهي نبي آدم waxa uu baray ashyaada magacyadoodii oo dhan buu baray yani magaca hadii la baray shaygiina waa yaqaana Soomaa wixii oo dhan baa la baray nabi aadam wixii koowaad ilaahay ina siiyay inuu ku manaystay buu ahaa cilmiga marka qofka dadka bara hada waa aqdiyadii koowaad ilaahay qof dadka siinahay cid ka khayr badan ma jirto waxa la marka dhamaanteen inaynu cilmiga barano علومته كلا إنه برنا أي ندينك إلهي سبحانه وتعالى أي نقول شقينه وأي نقنه بوسك النبي محمد عليه الصلاة والسلام إلى علماء وحويه وورثة الأنبياء سماه علماء إلى أنبياء إلهي المحلي لم يورثوا دينارا درهم دينار لقى ما دحل النبي الإلهي حول لقى ما دحل نبي حول لقى دحل مجرو لكن محادثك أي كدحلين علمي أقون الله كعبسي واحد إلهي دتك وقعب صدار كواحد وكل راضي انت سعيدين دردار ميا وأقول قولي هذا وأستغفر الله